بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى عليه الصلاة والسلام. وكاد دستوركي قضبك دستورك فدرالك كميل قارك قضبك أفرتن إيه التضباط golaha shacabka ayaa iskale awoodda doorashooyinka degelay wax maqal qodobka intaasaan ku dhaafaya aqalka sare ma khusayso wuxuu khuseeyaa article 47 waa golaha shacabka qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa saddex guddigii labada heer way isdoorteen oo way dhisan yihiin koomadu macnay leedahay wayna madax bannaan yihiin yay ka madax bannaan yihiin madaxweynaha prime ministerka maamul goboleedyada afar awoodda qabashada iyo maamulka doorashooyinka waxa iskale guddiga madaxa bannaan waa haddaad dee dastuur raacaysaan waa haddaad dee dowladnimo rabtaan qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa madaxweynaha prime ministerka iyo dowlad goboleedyada ma faragelin karaan madax bannaanida guddiga federaal iyo kasiidka habraaca ayaga iskale oo u madax bannaan awooddeedana leh waray qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa degalaay wax maqal haddii siciid cabdulaahi deni uu damco inuu afduubo guddiga hal qodob unbaa la gudboon guddiga inay shaqadana joojiyaan istiqaaladna dhiibaan qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed mursal iyo xildhibaanada golaha shacabka shaqadooda ha qabsadeen ileen doorasho waa la diiday inay dhacdo sababta loo diidayna habraaci baa la diiday oo la doonayaa in la kufsado shan mas-uuliyadda waxa qaadanaya madasha teendhada fadhida mar hadday qaadanayaan mas-uuliyaddaas waa ra-iisul wasaaraha waa maamul goboleedyada mar hadday mas-uuliyaddaa qaadanayaan baarlamaanu fadhiga ka kaca qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa walooy anigu nin iska hadlay maahi waa article 47 waa kaa calaamadsan lama faragelin karo looma dhowaan karo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka habraaca uu soo dhigay waan ogahay anigu ogogaal baanahay nimanka madaxweynaha isu sharixi doona qaar baan jeclayn habraaca oo doonaya boob in la boobo
ما قرنا يمشي ويحكوا أوجيهين. الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افرج لنا همنا وغمنا وعنا وكربنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحقيقة